وبعد كلمة كورونا بالله ويا ماتا ساعة مع الشرطين ورين واحد سلام يا بدحونا قلق كشبولية السودان مدن موسى بيحي عبد الدين بوليس وزيرنا ماموركا مدحدا والدكا أرضيدا أبواننا أبوياكا سلام للمو سلام waxaan doonayaa marka koowaad inaan hambalyeeyo jaamacadda marka labaadna kelmadda ardayda aanu leenahay aanu kula hadlayno ugu dambeyntiina ducada iyo dardaaranka saddexdaa qodob baan labadeeda mid ku ururinayaa jaamacadda Hargeysa waxay maanta qaranka u soo hoysay guul taariikhiya waxay qarankeena soo jirsaday u keentay ictiraaf albaab kasta loo qaraacay waxaa maanta sharafa ardayda difcadda lixitoonaad jaamacadda ka baxaysa inay fursad u heleen oo jaanis ay u tahay inay jaamacad mandaqada laga ictiraafsan yahay maanta shahaadadeeda ay qaataan juhdiga iyo dadaalka waxaa mudnaanta iyo sharafta ku leh maamulka madaxda mas-uuliyiinta iyo boorka jaamacadda waxaanan marag iyo markhaati ka nahay inay guushaasi ku timid تيم وقت كليهنا وكلهم اللي كانوا كانوا دكتور محمود بوركا بدون كليات دكتور سعيد وعندنا كرجالنا سنة كسنة فيسا قلت كون اللي بقى كروكتان حسبيان وحلولنا هاي همبليو البيضة إما ذا كلمة رد بسد الدار كان قاعدتان جامعة مرة كانت جريسة وطبعاً اللي بيكليه أما مدحنا قرن كويس اللي أما مسؤولين تكلم بلاش كعب لحيد اللي هذاني محل اللي كانوا عليك حركات اللي هو حيجمع وغير واحد تعب السوق اللي ومعناتها القراتين إلا معناتها الجوش الهنا لسه إذا دبتها حركة الله حفليا مدحولين غرق وقرن كهوجانية حركة الله حفل بلا مدحدي كره oo ay sharaf idin tahay maanta idin qala jiriso oo bartan mas'uuliyiin badan laga xusayay Saciid Surur madaxweyne ku-xigeenkii hore Cabdicasiis Samaale waabeeye iyo odayaal kale oo fara badan waxaan doonayaa aan idin sheego waxa idin kala idin kara markaad bartan soo galayno waxaan dhegeysanay heestii waadiga waxbarashada haddii aan ku foorganay maalinta dugsiga dhexe ilaa ka sare ilaa ka dhexe ilaa jaamacadda sababta la idinku shidayaa maxay tahay بين القفلمدين وخبرتان وقلكين قادتان وقرعس قشان وقف قيس النقطابة محا تدعين كل شيء هستا سوى حكم لها ودن كين وخبرتان ما تقدر محدد كباي ودن محدد كرامة أروح الدولة يا إلى المقطان ضد وركتها ورك دولة كتها وأن وراء ما تجمع هذا بيسك قال waxaan dardaaran badan kala qaadanay ardayda kulliyadda sharciga oo farxad ii tahay 4 sano ka hor inaan semester ku horeeyay macallin oo maanta inay kala jibinayaan waxaan isnidiyay u sheegay iminka dib ku celin ardayda kale aan janiska waxaan u baahanahay qarankan in badan baa la soo gardaadinay laakiin maanta markii nibay taagantay waxaan doonaynaa inay ruqaytaan ajandayaal ah iyadoo BBC-da laga leeyahay maanta Somaliland waxay gaadhay isku filnaansho wax soo saar oo raashin oo banka wajaale Afrika oo dhan uu quudinayo oo dekada wixii looga soo dhigaa inaan dowlad tan waxa keenaya xukuumadda mise waxa keenaya mucaarad aqliga la idinku aqriya aqoonta xambaarsantii baa laga rabaa waxaan doonaynaa in la helo ciidan awood leh oo maalinta ay dhimeen dabaaldegaya la maqlo dowladaha helicopteriska ee gumaatiga u kaca oo gaala degaya caasimadda dalka cidda la doonaya inay abuurtaa waa idinka waxaynu u baahannahay in miisaska dunida aad saartaan calanka iyo ictiraafka Somaliland cidda la doonaya waa idinka maaha in lagu hadlayo xukuumad iyo mucaarid markaste wuxuun isla laakiin cidda la doonayo dalkan inay taariikh kaga tagaan waa idinka waxaynu u baahannahay sida maanta aad walaalaha garaaska ugu tihiin idinka ehel iyo xigaal isku ah waxaynu u baahannahay tacabka waalidku giidigeliyeen dib ugu celisaan markastoo qarankaad waxtartaana qiimeedu yeelanaysaan oo taariikhdaas u taysaan ma doonayna tacabka maanta 4 sannadood ee lagu tabcayay dee tusaale waxaa idina ah inamada maamulka jaamacadda ka jaamacadda Hargeysa waxay ahayd institutionada dowladda meesha ugu dhibta badan
حكومته يحلك الله لكن أنتم مالوا كلمة وقوة اعتراف كان ما كانوا حنو بهنا إلى الشركة لنا كنا نقول إنجبنا إلى نشقين هايدنا إلى نشقين قرن كتاع كنا الجلسان وكان موقتا قانتا تيرو النواقع وعندنا إن وإن شاء الله برتاد كشقين سالين هايدا الدولة الوضع أروح فردا شرعي قبرتي بان توجو رئيسية أجراس موجود علي يمركي أنا كنت أجي أفرتي برونا سمستر كا واحد برونا الأربعي بليس كجرا مالك هو قال تاجنا بليس كوباهي بدل باكتاجن وتعب بدل بدل كروتشي كريه لما ضفر كرايو أمني قاعد يكون على يجا كذي يجا تعب كاجريا يجا إلى نت إلى هيك سوق المسؤولية ده لكن واحد يدك اللي يكرر الطارياش si cadaaladu ay noogu sugnato inay rubaanayaan wada noqotaan oo qaranka qof kastaba kaalintuu ka galaya uu keeno waxaanu ka rabnaa kuwa injineerada ah waxaan filayaa guddiga qandaraasada qaranku si fiican bay intuu madaxweynuhu wax magacaabay oo u shaqeeya runtii waan aqbalinayaa qandaraasada bixinaya waxaa la dhisaya waa hay-adaha qaranka oo kontaraagyada iminka guddoomiyuhu sheegayo dee injineeradan baa loo baahaya la taliyaan inay u noqdaan oy wax badan ka saxaan waxaynu u baahannahay kuwiina dhakhtarnimada bartay inaydan bareefadka teginayo cusbitadka weyna hargeysaad ka shaqaysaan marka aqoontan laydin baraya inay idinku ducdo hami qaran aad qaadaan taasi waa kelmadaan ardada leeyahay ta labaad in badan iminka gobollada bariga waxaa ka taagnaa arrimo khilaafiya dowladda puntland ayaan doonaya inaan bartan maanta baaq uga diro waxaan leeyahay ishaysadka axsaabta iyo xukuumaddu ha ku kalsoomida annaga madaxweynaha iyagu waxa weeye waa muuse biixi cabdi mucaarib iyo muxaafid ba isagaa madaxweynaha isagaanu ku taageersannahay inuu qaranka hago markaanu t v-ga ka hadlayno ee aanu maagayno walla xijcelaanu ka qabna xumaan iyo cuf aanu hayno maaha isaguna inuuna dhegaysto oo qaranka geestiisa uu qaato xaq baa loogu leehay marka waxaan leenahay waxa yaryarana dhex maraya ha ku kalsoomina mashaqadaad ka wadaan gobollada barigana faraha ka qaado taa horta ku biicada markay noqoto arrinta qaranka xisbiga waddan principalkiisa koowaad waxa weeyaan waa mudnaanta qaranka ma aha kursi fuul ma aha dadka la qaybi waa mudnaanta qaranka iyo wadajirka dalka iyo dadka annaga taasaa noo mudnaana haddaan kursiga ku waayay iyo haddaan ku helaynaba farinteedu waa taa waxaan ku gabagabaynayaa oon doonayaa bartan inaan cusiyad ka soo jeediyo oo ah madaxweynahan inaan kelmad yar kooban isla gula mudane madaxweyne qoladayada wadani baan la kaftamay maalin dhaweytolo waxaan wanagan madaxweyne ismari leh meesha madaxweynuhu uu ku hortee wax badan uu ka ogolaado oo jaamacadda iska daay doorkii hore martabaadagii madaxweynaha isku helnay waa kii keenay barnaamij qaran oo runtii aada u qiimo badnaa aniguna waa nigii bogaanay mushkiladda maamkana haysato dhowr arrimood midi waxa weeyaan waa taa doorashada oo ilaahay ka rajeynay inaynu xal ka gaadhno midna waa xalinta mushkiladda bariga taala iyadana waxaan rajeynaynaa in xal toosa iyadana laga gaadho si midnimada qaranka iyo qiimihiisu oo usoo noqoto qolada reer burcana waxoogaa markay madaxweynaha dacaadeynayso u fuliya waxbay sheegi jireen laakiin anagu maanta waxaan leenahay muuse muftax noqo maanta oo hawlaha laga kala marka madaxweyne waanu kugu ciiraynaa waxaan u baahannahay arrintaa caalana inaga afmeed ilaahay khayr ha ku siiyo qolada bariga la sii eriyana maanta barxaal bixiyo wixii qadafee dhacay inaanad qabil iyo qalasha waa maya maalin dhaweytolay u lahaa somaliland waxa ugu faxalsan buu lahaa sheekh aadan siire iyo madaxweyne muuse bix baryadina gacanta yala furo farxadnimadiina wala kaa muuqato aad baan idin salaamayaa waxaan leeyahay hawl kale inaanu tagaan doonaynu fasaxdaan wasalaamu calaykum waraxmatullah